hub ay Iiraan u qaybisay Xuutiyiinta ka dagaalanta dalka Yemen ayaa si sharci darro ah looga gudbiyaa gacanka Cadan ayada oo la geynayo gudaha Soomaaliya. Waxaa sidaasi maanta lagu sheegay daraasad ay soo saartay hay'ad caalami ah oo fadhigeedu yahay magaalada Geneva. Hay'adda Global Initiative ee la dagaalanka dembiyada caalamiga ee abaabulan ayaa sheegtay in daraasadeedu saldhig looga dhigay in ka badan 400 oo hub ah oo laga diiwaan geliyay 13 goob oo ka mid ah Soomaaliya muddo 8 bil ah iyo kuwa laga qabtay 13 doon oo ay qabteen ciidamada ilaaliya xeebaha Soomaaliya. waa daraasadii ugu horeysay oo iftiimisay xaddiga hubka sida sharci darrada ah uga gudba Yemen ee la geeyo Soomaaliya. hubka asalkiisa ka soo jeeda ganacsiga hubka ee Iiraan iyo Yemen ayaa la galiyaa Soomaaliya ayay tiri daraasada oo maanta la daabacay. Iiraan marar badan ayay beenisay inay ku lug leedahay hubka la siiyo Xuutiyiinta. si kastaba cadeymo baaxad weyn ayaa muujinaya in dowladda Iiraan ay hubka u qaybiso. wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan iyo afayeenka Xuutiyiinta ayaa labaduba diiday inay ka jawaabaan daraasadda. afayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasiirka amniga gudaha kama aysan jawaabin, iyagana codsi loo diray oo ku saabsan si wax looga weydiiyo xogta daraasadda ku jirta iyo xaqiiqooyinka xogaha la xiriira in ay dhab tahay jiritaanka in hub laga soo tilaabiyo gacanka cadmeed oo la keeno gudaha dalka Soomaaliya. daraasadda ayaa intaas ku dartay in baarayaasha ay awoodi waayeen inay diiwaan geliyaan magacyada dadka hubka iibiya iyo kuwa soo iibsaday intuba. hase yeeshee waxaa jirta astaamo cad oo muujinaya in hubka ay qaybisay dowladda Iiraan ayada oo taxanayaasha lambar ee hubka ay muujinayaan inay yihiin kuwa ka yimid dhinaca Iiraan. waxaa sidoo kale jira in xogta laga helay nidaamyada satellite-ka ee maraakiibta la qabtay iyo sirdoonka bini'aadamka ee kooxaha wax tahriibiya ay intuba la xiriirinayaan dhinaca xukuumadda Tehran. mid ka mid ah doomaha hubka sida oo ay qabteen ciidamada badda Mareykanka ayaa laga helay xogta safarka markabka oo muujisay inay ka timid Iiraan soo martay koonfurta Yemen oo ay tagtay Soomaaliya. Idris Iman, RTN, Nairobi.